السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت له ومانجر سعدية حرسي وهالكذا كسو سلام إسا ما أنت وحان ربا إنان كاغا فائديو ألابتين بردكتينا قيبهان آن هينو ما شاء الله especially فيتامين ذا ما شاء الله تبارك الله بروتين ذا عبيتان ذا محي جركاغ أتريان هدي آتهاي قف عافماد قبا iyo haddii aad tahay qof xanuuna ku jiraan jirkiisa waxaan rabaa inaan kaaga faa'iideeyo oo insha Allah ta'ala si wanaagsan ii dhageysato sideedaba xanuunada waxa keena oo Soomaalideena inta badan u badan tahay waxa keena waxa waa fitamiinada jirka u baahnaa oo san helaynin waay waxa arkaysaa qof sokor haysta cholesterol hayo dhiig kar hayo lafa xanuun hayo arthritis hayo daal hayo indha xanuun hayo everything marka waxa keena xanuunadaas waxa waaye jirkaagii oo nafaqooyinka loogu talagalay aan helaynin waay si joogto u helaynin waay markii aad isticmaasho productyadeena oo si joogto waliba u qaadato waxa kuu fududaanaysa inaad xanuunkii si tartiib alaabteena medicine ma ahan laakiin waa nutrition iyo nafaqooyin waay oo loogu talagalay maadaama cuntooyinka especially Soomaali hadaan cuntooyinka aan cunno waan wada naqaanaa digsidan oo bariis laga yaabaa inaad soo agdhigto hal mar dam ka siiso waxa laga yaabaa cad yar oo hilib inuu dul saaran yahay ama uu bedelo bilaashi haduu rabo marka cuntooyinkeena isku dheelatirneen ayaa keenaysa marka ma sha Allah tabarakallah cuntooyinkeena isku dheelatirneen baa keenaysa in qofkii xanuuno badan ay la soo dirsaan moor uu qofku ku noqdo dhakhtarkana oo dawooyin lagu soo daldalana waa moor uu jirkiisa nafaqooyinkii iyo nutritionkii iyo wuxuu helay isii dhamaanayaan waa moor uu ka sii darayo weeyaan marka maxaa u baahan tahay markaad xanuun isku aragto waxaad u baahan tahay inaad cuntooyinkaaga ilaa hagaajiso dheelitir ku samayso waxaad u baahan tahay fitamiinada jirkaaga inaad complete ka dhigato aniga manager Saacadiya Xirsiya reality fitamiinooyinkan qaybo badan oo ka qaataa jira hadda fitamiinkan Vitalize for Women ko kale waxa ku qoran Vitalize for Women ina arkaysana rajeynaya dumarka loogu talagalay haddii caadada ka qalqalsanta waa loogu talagalay difaacna way u noqonaysaa aniga fitamiinkan aad baan u isticmaalaa waa Vitalize for Women dumarka loogu talagalay dumar ahaantaada ayuu ku anfacayaa wuxuu kala dagaalamayaa inaad adoo da'daadu yar tahay haddana caado qalqal kugu dhaco wuxuu kala dagaalamayaa fitamiinadaadii aad u baahneed fitamiino badan baa ku jira oo dumar ahaan aad ugu baahan tahay ku jira wuxuu ilaalinayaa oo ka boqolkiiba boqol ku ilaalinayaa in aad hormoonkaaga qalqal u ku yimaado waxa arkaysaa gabdho yar oo haddana caadi qalqal ka qalqashay gabdho yar oo leeyahay xamahoodii baa eber noqday gabdho yar oo waxa arkaysaa caadi oo isaga tagtala ama way googo'aysaa xilliga doonta imaanaysaa gabdho yar oo ka cabanayo dhahayo intaasoo sano uurmayna yeelan waa arkaysaa dawladda Ilaah baa bixiya laakiin waxba baahantii fitamiinadan ani fitamiinka reality si joogtaan u isticmaalaa sababta maxay tahay dumarnimadaadu ilaalinaya waa fitamiin adiga aad u baahan tahay waay shakhsi ahaan dumarnimadaada u baahan tahay hatta adoo wax dhibaato aniga hadda wax dhibaato ma qabo hormarkayga alxamdulillah rabbil caalamiin haddana si joogtaan u qaataa habeenkina 2 xabaa laga qaataa maalintina 2 xabaa laga qaataa waa la joogto waa fitamiin caadi waay waliba Vitalize for Women balda aad buu fiican aniga habeenkina 2 xabaan ka isticmaalaa ma sha Allah tabarakallah waa kana habeenkina 2 ka isticmaalaa subaxdina 2 ka isticmaalaa ma garateen habeenkina 2 xabaan ka isticmaalaa subaxdina 2 xabaan ka isticmaalaa aad buu fiican uu ku dajinayaa ma sha Allah stress ka dhan buu kala dagaalamayaa hormoonka inuu qalqalo ka ma sha Allah hadaad la qabsato fitamiinadaadana complete uu ka dhigayaa reality aad buu fiican dumar ahaantu u diyaari kamaligeena ma sha Allah tabarakallah oo waxyaabaha aan joogtada u isticmaalo waa hada joogtada u isticmaalo aniga manager Saacadiya Xirsiya ma sha Allah tabarakallah
ووحيابها aan joogtada u isticmaalo waa biyahaas aad ku cabaysaa maasha Allah labada xabo waa isticmaalaya subaxdina labaan ka qaataa markaan quraacda ka bacdi habeenkina markaan sii seexanayo laba xabaan ka qaataa reality bismillah كوبيا كعب ما شاء الله أد بكو أنفع دونا dumarnimada uu anfacaya lagama sheekeen karo caado qalqal baan qabaa hadhihin waa fiican hadhihin waxba ima hayaan hadhihin yani waa fiican tahay hormonkayga hadhihin isticmaal ka hortag buu ku yahay forever alaabteeda ma kala dhacdo marka ani waxaan idin kula talinayaa haddaad xanuuno qabtaana si joogta u isticmaal lafa xanuun ma ku hayaa si joogta ah productyadan u isticmaal hadda freedomkan oo kale ما شاء الله aad buu fiican yahay freedom dadka lafa xanuunka qaban siina jirkaaga iyo lafahaagi baa la soo nafaqeynaya oo nafaqooyinkii ka maqnaa maxaa keena xanuunka maxaa keena xanuunka waxa keena waxa u baahnaa uusan helin shaqo qabanaya jirkaagi lafahaagi way shaqeynayaan haddana waxay ay u baahnaa ma helayaan hadda gaariga kale hadduu shidaal ka maqan yahay do you think inuu shaqo soconayo ma soconayo gaariga hadduu bilaa shidaal yahay ma soconayo jirkaygan hadduu bilaa nafaqo noqdo oo nafaqooyinkii lafaha ay u baahnaayeen ama nutritionkii u baahnay hadduu helin wuu iscunayaa jirkii adigaa dareemaya xanuun baa dareemaysaa hadda gaariyaasha oldiga ah iyo gaariyaasha cusub isku mid ma ah gaariga oldiga markaa raacdid gam 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 isaga dhan baa shanqaraya marka fitamiinadan isticmaala cabitaanadan isticmaala waa natural way wax say afagtiya ma lahan wax doofaara kuma jirto wax qamraa kuma jirto ma sha Allah si natural ugu soo diyaariyay waana very quality hadda fiiri hadda freedom kan qaadato lafa xanuunka ka cabanayso hadda ma sha Allah tabarakallah omega 3 gan qaadato omega 3 aad buu lafa ugu fiican yahay because xididada dhiigga ayuu u fiican yahay wareegga dhiigga ayuu u fiican yahay ma sha Allah lafahana aad buu ugu fiican yahay dadka lafa xanuunka qaba waan siinaa ma sha Allah lagama sheekeen karo hadii marka aad ma sha Allah tabarakallah labadana isku qaadato waxaad ku sii dari doontaa haday lafahaagu aad kala goosida ku xanuunayaan waxaad ku dari doontaa ma sha Allah tabarakallah HA gan baa ku dari doontaa waa forever HA waa inay arkaysaan baa rajeynaya waa forever HA waa hadii marka HA aadan haysanin waxa isticmaali kartaa move kan aad u fiican yahay hadii marka HA aadan haysanin waxa isticmaali kartaa move fa isticmaali forever move fa isticmaali kartaa ma garatay marka maxaa u baahan tahay waxa u baahan tahay inaad fitamiinada lafahaaga siiso lafahaaga fitamiinadan sii lafa xanuun ma dareemaysaa si joogta ah waliba u sii sida cuntadaada cunto u qaado maalin walba isticmaal adoo waxa arki doontaa lafahaaga stronger soo noqdeen lafahaaga dhacaanka iyo dheeraarka ka dhamaada u soo laabteen lafahaaga xanuunka joojiyay alaabtani marka isticmaasho forever alaabteeda ma kala yareysato haddaad forever alaabteeda joogtaysato ya adiga la dagaalamaya xanuun kasta oo dareemayso marka waxa dhici doonto inuu xanuunka oo dhan ka tago sababtu maxay tahay meel silicsan buu xanuunka joogo waa la soo ogaaday reality waa la soo ogaaday dadka uu ku badan yahay xanuunka ma aragto waa dad qof waxa arkaysaa intaas oo kaniiniyal cunayo lafaha layga hayaa dhabarka layga hayaa murqaha layga hayaa jilbaha layga hayaa hormoonkayga qalqalsan gaas baa ahay waxaasoo dhan dawooyin uu cunaa marka dawooyinkan uu qofkan cunayo reality waa xanuun baabi'iye jirkana waxay kala dagaalamayaan reality marka la soo ogaaday ya difaaca jirkii la dagaalamayaan lafaha waxba kuma soo kordhinayaan xanuunka lafa xanuunka u isticmaalayso waxba uma soo kordhinayaan lafaha kuma kordhinayaan waxba kuma soo kordhinayaan marka maxaa u baahan tahay waxaad u baahan tahay fitamiina u baahan tahay marka alaabteena kamarigan wuxuu intaas oo wadan u gaar wax kala ma waa fitamiinada weeyaan hada fitamiinkanet waa B2 alif plus waa aad buu fiican lagama sheekeen karo waa B2 alif plus qof walba u baahan ma garateen maxaa kamida forever immune ka difaaca jirka u fiican yahay difaaca jirka haduu hooseeyo de xanuun kasta ku soo wajahaya coronavirus markuu dhacay aad baa loo dalban jira ma sha Allah tabaaraka clinic aaneto maxaa kamid oo kale ma sha Allah
fitamiinad baan ku jirnaaye waxaa ka mid ah forever immunigum ka xataa ciyaalka teenagerka waa la sii aad ugu fiican yahay fitamiino badan baa ku jira waxaasoo dhan waa fitamiino waay mala soo tirin karo ma garate marka forever alaabteeda ma tirin karnee waxaad samaysaan alaabtan isticmaala anigu waa idinla talinaya alaabtan si joogta u qaata oo isticmaala maxaa ku jiro waxaa ku jira maasha allah tabaarakallah waa marina collagen waa koolada jirka isku xirta waay maxaa keena lafaha inay ku xanuunaan because waxa koolada jirka isku xiraysa waa low ah qof walbana uu u baahan yahay ilmaha markuu dhasho maasha allah 30 xabaa ku jirto ilmaha markuu dhasho wuu birbirqaya ma aragteen ilmaha markuu dhasho wuu birbirqaya aniga mar walba waa isticmaala habeen walba markaan sii seexanay hal xaba isticmaala sababta maxay tahay taahaad ka raysanaysaa lafa xanuunkaa ka raysanaysaa jirkaagiyo qayrmaa ka raysanaysaa waa birbirqaysaa baan waa birbirqaysaa sida waxa u birbirqaysaa maasha allah diamondka u birbirqaysaa maasha allah hal xabaan ka isticmaala maalin walba habeen walba markaan sii seexanayo waxay ii agtaalaa maasha allah tabaarakallah komardiinkaygu ag yaalaa sirtayda maalin walba waa isticmaala hal xaba habeen walba markaan sii seexanayo حتى أمي بحر إن الوقت بدن جلسوا حبدا بس أساس أفكار كفرة سوى عبيس واسيس حتى وحكى لهم أمي بحرت سو ما أركسان والله شنبري قفك استعماله 5 days قفك استعماله أو هبين والمكوسيس حنا استعماله يا شركة سوالة السكان يا وعلى السكان دونا شركة هذا I tell you true مرينا كل شيء كان هذا هبين والبا استعماشه شنبري هذا استعمال هو 5 days ذا استعماش وهبين والبا استعماش يا شركة يوجه ولا waxa qof markuu ku arko wuxuu ku dhahayaa walaalahay ma hadda soo kacday hurdaa ka soo kacday qof soo nastaa oo egtahay baa lagu bilaabaya ma garateen miimiin kula dagaalama daadu ka hortaga daal kula dagaalama lafaha is cunayo la dagaalama waxaas marka marina collagen kan isla ogaada waa waxyaabaha qofka uu u baahan yahay weeyaan dhakhtarada xataa ku sheegay reality collagen qofka markuu dhasho ma aragteen waa birbirqaya haas u birbirqaya gebigiisaba dalaal baa ka baxaya sababta maxay tahay collagen-kii wata hada ilmo yarka markuu dhasho isagoo waxa arkaysaa ilmo madow hadana waxa arkaysaa markuu dhasho birbirqayo ma sha Allah marka saasa u qaadanaysaa wax waqti badan ka qaadanay ma ahan sirrtada ag dhigo rag iyo dumar way isticmaali karaan mid labaadna talada ay siinay waxa waaye hurdada isla ogaada hurdada iyo biyaha waa talo ana ay siinay biyaha cad iyo hurdada isla ogaada xilli fiican seexda 6 saac ugu horeeya hadaa seexataan is enough ma sha Allah tabarakallah ما شاء الله marka waxaan meesha ka maqneen oo ma sha Allah alaabti forever aan ku jirnaaye forever fiber waa cuntooyinka galka leh waaye dadka aan cunin dadka aan digirta iyo qamadiga iyo waxyaabaha dadka aan cunin maartay cuntooyinka galka leh masagada iyo dadka aan cunin baa loogu talagalay waa cunto yar oo fudud waaye waad qasaysaa koob biyo 8 ounce ku qasaysaa waa cabaysaa dadka caloosha u jilcisaa ma sha Allah waxay ku siinaysaa nafaqooyinka ah ka heli lahayd cuntooyinka galka leh ma sha Allah tabarak marka ma soo koobi karno hada xanuuna aad dareemayso xanuunka aad dareemayso noo soo sheeg fitamiinadan iyo nafaqooyinkan ayaan ma sha Allah tabarakallah si natural ku siin doona hadii Allah idin hada kaniiniga wuxuu la dagaalamaa bakteeriyada caloosha ya ma sha Allah tabarak ma laga sheekeyn karo forever alaabteeda ma laga sheekeyn karo forever focus ilo shaad ka baxaysa forever focus isticmaash hada fiiri kan oo kale garlic waa toon baa laga sameeyay toon dadka cholesterol ka qaba iyo dadka dhiig karka qaban siina aad buu u fiicay ma sha Allah tabarak dhiigana uu kaliin garaya marka forever alaabteeda ma soo koobi kare calciumki waa ku jira oo dadka u baahan aan ka iibin ma sha Allah tabarakallah cabitaano kala duwan baa kamid ah ma sha Allah tabarakallah oo nooc walba leh waxaan ku soo gabagabeynaya walaalaha sharafta loo dhageysanayo alaabtan isticmaala reality dadka forever ka shaqeeya oo forever ku jira waxa arkaysaa qof dad 30 iyo dhowr sano ka shaqeynaya oo ka maarmay dhakhtar way ka maarmeen sababtu maxay tahay xanuun haduu qabto alaabta isticmaalaya bi yaqaaneen waa kaas ayagaaba iibiyaba
ma garateen marka alaabtani isticmaal aad buu ku anfici doonaa midda labaadna waa alaabtani fitamiinadan kaliya ma ah skin care-ki baan haynaa daryeelkii maqaarka ahaa daily life-ki baan haynaayo maasha allah maalin يعني waxaan haynaa personal care-ki waxyaabaha maalinlaha qofku u baahnaa shaambadii conditionkii spraygi madaxa lagu buufinayo saliidda nafaqada ahayd ma soo koobi karo yani skin care iyo personal care oo dhan baan haynaa malabkiioo saafiya haynaa waxyaaba badan baan haynaa lakiin inta waxaan usoo qaato waxa waaye dadka xanuunada la nool hadday xanuuno jirkaaga ku jiraan kaga saar nafaqooyinkan nutritionkan isticmaal si joogta u isticmaal way kaa tegi doontaa adaa arki doono adoo fay ah oo caafimaad qaba arki doontaa alaabtana inta feedback aan ka heyno mid la soo koobi kara ma ahan waa manager Sacdiye Xirsi oo halkan mar walba u taagan in idin garab istaagto diyaarna u ah in maasha Allah tabaaraka alaabtani maasha Allah discount idin sameeyso meesha adduunka joogta kugu keento waxaan kaloo diyaar u ahay maasha Allah tabaaraka Allah in aad ka shaqaysan karto oo ganacsi ka sameyn karto oo caafimaadkaaga kaga faa'iideysan karto oo qurxintaada kaga faa'iideysan karto si natural ah ayuu wuxuu u hayaa suuq weyn oo caalami ah oo ka shaqaysan karto kan dhex adeegan karto aad baa idin salaamaya waa manager Sacdiye Xirsi iyo wax soo saarkii kamanigeena weyn ee Forever Living Product